سلام علي جلي ماشا uga jooga fiiriya meesha uga jooga بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I love you all Minnesota people. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan museumkan ka soo qayb galo caawa oo ay sharaf weyn ii tahay. caawa ma rabo inaan ku dheeraado maxaa yeelay waa habeen dadku inuu warka qaybsado loo baahan yahay. marka fanaanada diisha ay haysato waa tii laygu soo haba aniga. caanaha igu jiri jira waagaan yarayo halkaasaan caanaha ka cabi jira. inaad soo qaadaan marka ee Minnesota keentaan aad iyo aad ayay waxay u tahay arrin muhiima maxaa yeelay waa in laydin xadaa diideen in laydin xado. haddii aad dhaqankiina ku dheganaa weydiin waa laydin xadaa. marka waxa luutariska la yidhaahad iska ilaaliseen. marka aad iyo aad u mahadsantihiin runtii markii aan marka wax yar aan ka taabto hiddaha iyo dhaqanka. waxaan rabaa inaan aayad yar oo nabi yuusuf ku saabsan aan idiin sheego. lahaanshaha wuxuu yidhi watabactu waxaan raacow yidhi millata aabbaa'iya ibraahiima aabbaheeyaan raacow yidhi diinkiisa wa isxaaqa wa yacquubaan raacow yidhi. intaba waxuu ka bilaawiyey awoowow ka soo bilaawiyey. maa kaana lanaa an nushrika billaahi min duuni illaahi ou yidhi annaga inaan ilaahay u shariig yeelno abtirsi uma lihin ou yidhi abtirsi uma lihin. taasna daalika min fadlillaahi waayou yidhi fadli ilaahay waay. marka ogow markuu saas leeyahay waa faantama waa isagaa is ammaanaya. anigu dadka lamid miihi waayo dadka waa ka fiicanaha waayo. soomaaliya marka inay dadka u fiican tahay aad muujiseen aadaadna u sharfantihiin. hadda dhaqankana waa aragteen suunka dharka iyo macawistaas oo ilindiga iyo go'a cad waa kii aan ku faani jirna. inaad inta soo wadii Minnesota keenteen hambaliyaan idin leeyahay. hambaliyo aad iyo aad aan idinkagu mahadcelaa. marka aad iyo aad u sharfantihiin. haddee dhaqankuna wuxuu yahay waa waxa wanaagsan waaye wa innaka la calaa khuluqin cadiim aa la yidhi nebi moxamed. marka dhaqankiinnii wanaagsanay ayaad soo rarteen. cid idin xadi karta male. waa guulaysateen. Minnesotana waxaan ogaaday inay tahay meesha Soomaaliya markii jaaliyadda Maraykanka la joogo halkaanu inay tahay xaruntii dhaqanka oo aad idinka isku ilaalinaysiin oo sharaftiina iyo karaamadiina aad ku ilaalaysiin. mar labaad waxaan idin leeyahay I love you all of you.